KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan KNN kalamaanay waxaan idin idhi saldanada ragow meertaasidee ruux aan sugayn inay siin kartiyo inay subaxba meel ku salaysan tahay ma ku seexataa warlanya arisku bayna saageen alaari ersaagada socda la kuweydiye meelale meelinogala kuweydiyaana ninyaw aryaadhaha lamadi tilaababa talaa ka dhalataa la yiri yaxaa cusub haddii la soconayo ma meel kaloo la aadaa la waaye maxaa Nairobi laga doon war intiina waxaad sheegaysaan dastuurka ku qoran tahay war dalkeena inaan iibsan karin dastuurka ku taala war adinkoon daalin xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha ilaa suuq loo helo loo dhoofiyo miisaaniyad ku filan wadanka lama helayo war beeraan degalata beero la fala unta ka yaalan badi walaalka dhoofiya unta ka taala niyow war wax kale iska daayay sagaaradii xitaa qadar baa loo dhoofiyay maxaan miisaaniyad nagu filan ugu heli weyn war nimanka dhaqaale la'aanta xitaa al-shabaab ay soo wajahday oo waxa la yiri xoolaha baadiyaha ka luma intay xareystaan bay muqdisho wiil keenan aryaadhaha shabaab ma dadkay baadiyeesteen ay xoolo baadiya ku masruufayaan war waxaad sheegaysaanu dadadow baadiyeyso oo baadidadow ku bilmiya war hadda koona waxaan maqlay bal dadow deyn ku qaad lo dadow deyn ku sii aryaadhaha xaad isugu daalihaysan hadda ka hor faratol igaar la yiraaho wuxuu yiri oo kalaamaan mugdi ruux ku foon karbuuna haysan waa uu ka kalaamaan mugdi ruux ku foon karbuuna haysan waa uu ka haye war nimanyo mahmahayooyin cusub baa soo baxay oo update 2019 ah waxayna kala yihiin maskaxdii ka maqan google ku jirtaa ninkii Facebook laga waayo WhatsApp ka laga helaa qofkii iga joog laga waayo mar buu blog la kulmaa waxa kale la yiri nimaad ku darsatay isaga kuguma darsan waaye like sar lama yiraahdee wuxuu ku saaraa la tusaa waxaana kale la yiri Soomaalidu been like way saartaa balse been ma sheer garayso aryaxaad sheegaysin dadkan waxaan been hayn bashirka kuma naqdaan war hore waxa loo yiri hadii aan blog jirin lama kala badbaadeen war bahalaasay heesa haytay ninku ku dheelayniyow hadii aan jaceyl jirin jawhar lama degeeno hadii aan jaceyl jirin balad idii ma joogtee war hadii aan jaceyl jirin jaarba maynaan ahaaneen war hadda qowdinow Soomaaliland iyo Soomaaliya ma jacayl ka dhaxay wareedhahay ana war idin hayay dhageysta ra'iisul wasaare Khayre wuxuu soo xiray shirki culimada khudbad taariikhi oo caaqibadana waa ka jeeday wuxuu yiri hadii dawladii hore ka baqi jireen mucaarad tani waxaas waa ka gudubtay war una maseen liyaaban wiligii lantintiska kan timajira ari jirtan lankimidowna arabeeti ya ari jirtan sidii lay ureed aryaadaha madaxweyne farmaajo waa kii shirka qaahira ka qayb galayay waxauna la kulmaan la yiri madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan nindo ay aray war madaxweynahayagii Muuse Biixi ma ku jira shirka ka dhacay qaahira aryaadaha warka hayga dhabjinina madaxweynihii hore wuxuu yiri siyaasinimadu ma aha kursi doon kaliya bari gashow inaad wax mucaaradana waa laga fiican yahay dawlad kasto dhalatana hadii aad mucaaradin wax idin hagaagaya male war talada madaxweynihii hore ku soo xasuustay nin odayina dawladda wuxuu kula taliyay fulanimadu khayr ma leh geesinimo yeesha baqaylnimaduna hogaamin kuma fiicne gacan wax bixisa yeesha degdeg iyo fudaydna ma fiicne deganaan iyo dulqaad yeesha qoladiina aan jaarka nahay waxa tihiin talada la roogin waa lagu rafaada war madaxweyne farmaajo war kama hayside maanta wuxuu ka tagay dalka Eritrea waxaana la yiri asiyaasa warkii
uu la kulmayaa war elatariya xuduuddii ay etoobiya la lahayd bay xirataan la yidhiye madaxweyne farmaajo maabi axmed iyo afaweerku soo heshiisiinaya war iskaashiga saddexdii dowladood madmadow maa soo dhex galay aryaadhaha gabarta hadda ka hor la kufsaday lana jarjaray ee magaceedu ahay caashe ilyaas qoyskii dhala waxaa la yidhi beledka gaalkacyood waa ka qaxeen waxayna u qaxeen xuduudka soomaaliya iyo etoobiya waxayna ka carareeraan la yidhi cabsi soo wajahda iyo cadaalad darro haa arla alla waansa'away meelad cadaalad darro ka aragda walka araawe waryaadhahen somalilan waxay xabsiga ka sii daysay hablo dhaqan xumo markii hore lagu qabtay oo kanadiyaan ah war waxaa la yidhi aqoon iyo dadaan awood badan lahayn hadduu kala ambado aboorkaa cunee inaad urursanaan isku aaminto hadba miduu ehela arrinka u dirto addinkiiyo afkaba isu gaysataad ku adkaan kartaa soomaaliya war may ambaagane langidhimid inoo aboor ahmaw war hay-adda nabasugidda waxay tidhi nin ka tirsan amniyaadka shabaab baan muqdisho ku qabannay amiir horoo gada iska dhiibayna xamar baa loo soo gudbiyey villadoola sidijiyayreed lamadiyo war baarlamaanka sidii ardayda dugsi qur-aanka loo wici jiray maanta wakhti badan ay qaadatay si kooranku u buuxsamay inay soo xaadiraan 6 saacaan la furay kulanka waxaana la yidhi guddiga xuduudaha ay warbixin ka dhegaysanayaan war hiiraan oo shalay salaaddii roobdoonta laga dukanayey maantay roobabkii gugaa ka curtay war unubi reejo rabba toognay hatiirka dhong hamidowya ilaahow roobni heshaan war ilaaha baxsha roobke aan ka barino war barimeerlig orar kama haysaane kaalinta afraad baa horyaalkii noqoto kooxoda dhama u tartamayaan war waxaad nooga sheekaynaysaa waa maxay waryaa waa ciyaarihi adduunka warya haanhaadoo dadka dhax jiran barimeerlig bay noo galeen warya roob allaha keene